markii uu shaqada bilaabay xafiiska guddiga madaxa bannaan ee shaqaalaha dawladda Soomaaliya ayaa waxaa soo badanayay cabashooyin baahsan oo ka imaanaya qaar ka mid ah shaqada dawladda cabashadaasi oo ku aadan musuqmaasuq baahan iyo isdabamarin uu sameeyay xafiiskaasi shaqaalaha ayaa ku sheegaya in xafiiskaasi laga qaato shaqaalaha doonaya in darajooyin kala duwan la siiyo lacago kala duwan oo kala heer ah iyadoona lacagahaasi ay u dhaxeeyaan darajada koowaad ee oo la bixiyo 500 ilaa iyo 300 oo dollar wixii ka hooseeyana 300 oo dollar ilaa iyo 100 dollar iyadoo darajooyinka sida ay u kala sareeyaan u kala mushaar badan yihiin waxaan booqanay qaar ka mid ah wasaaradaha dawladda Soomaaliya waxaana wasaaradii ugu horeysay ee aan tagnay ay ahayd wasaaradda warfaafinta ee dalka waxaanan kula kulanay qaar ka mid ah shaqaalaha oo aad uga cabanaya xafiiskaas Cabdicasiis Maxamuud Guuleed Afrika waxa uu kamid yahay wariyaasha ka howlgala raadiyo Muqdisho waxaanan wax ka weydiinay wixii uu ku arkay xafiiskaas isagoo sheegay inuu haysto darajada B balse uu ku bixiyay lacag laaluusha inuu helo darajadaas guddiga shaqaaluhu waa meel musuqmaasuq oo hareeyay aniga shakhsiyan iyo 8 qof oo kale waxay naga qaateen 900 oo dollar oo ay maaragtay noogu dhameeyeen habab lacagtaasna waxa gacantooda nooga qaaday Cali Dheere iyo Xasan oo xogayaha guud ee guddiga shaqaalaha wax qarsanna ma guddiga shaqaaluhu in meesha lagu shaqeystay aan loogu shaqeyn sidii sharciga ahayd ee shaqaalaha waxaana meeshaasi ka dhacay wax badan oo isdabamarin iyo musuqmaasuq ah waxaana ka garan kartaa waraaqaha meesha ka soo baxay haddaad fiiriso dadka ku qoran qofka iyaga ayaa waxay siinayaan wixii ay markaas qofka kula heshiiyaan ee wuxuu xaq u lahaa ma siinayaan waxa sidoo kale meesha ka jiray hab qoomiyad jeclaysi aan dhihi karno iyaduna uu ka jiraa oo dad gaar ah oo aad arkayso qaybta shaqaalaha dawladda dhammaantood waxa laga safeeyay xafiiskaas guddiga madaxa bannaan ee shaqaalaha waxa gudoomiye u ah Cali Maxamuud Ibraahim oo loo yaqaano Cali Dheere iyo sidoo kale Xasan Abshirow oo xog haya ka ah balse shaqaalaha dawladdu ay inoo sheegeen inay u yaqaanaan qaade iyo qarshe mar aan booqanay xafiiskaasi oo aynu doonaynay inaan wax ka ogaano cabashada ka soo yeeraysa shaqaalaha dawladda ayay inoo sheegeen labaduba inaysan ka hadlaynin arrintaasi Maryan Cali Abayle waxa ay 40 sano ku dhawaad ka shaqeynaysay raadiyo Muqdisho waana hooyo kamida hooyooyinka Soomaaliyeed waxay aad uga cabanaysaa xafiiskaas iyo waliba shaqaalaha imtixaanka ka qaada shaqaalaha dawladda oo iyagu ay ku tilmaantay inaysan aqoon lahayn Maryan waxay inoo sheegtay in ay iyadu imtixaantay shaqaalihii imtixaanayay balse wixii ay weydiisay ay garan waayeen sida daraadeedna aysan aqoon u lahayn waxa ay shaqaalaha weydiinayaan imtixaanka laga qaaday waa ku barmoosay ana toqol ugu daray ka different chapter isla benisol ana ugu daray Soomaali benisol mas isla ma adshaq ninka imtixaanayaan badhay ana asayir bishib ableeyir imtixaanka laga qaadan ku sheegay form 4k aan xasuusta kalaamadaasi waxa anaga cilmi waa leeyahay laqad cilmiga qaawanadatiin naga warbiyan cabashadu kuma koobna inta oo kaliya balse mid ka mid ah shaqaalaha dawladda oo lagu magacaabo Maxamed Xasan Axmed ayaa inoo sheegay inuu xafiiskaas u yaqaano baabi'inta shaqaalaha dawladda isla markaana markii uu tagay oo uu la tagay shahaado jaamacadda Muqdisho la yiri waxa fiicnaa lahayd in aad la timaado shahaado simad ah taasi oo uu arkay inay tahay ujeedo gaar ah aniga guddiga Cali Dheere waxaan u aqaanaa guddiga baabi'inta shaqaalaha reed sababtoo ah waxaan u geystay shahaado jaamacadda Muqdisho ah wuxuu si jees igu jawaabay shahaadadan waxa ka fiicnaa lahayd shahaadada simad taasoo u muuqata mid uu ku durayo madaxda dawladda markii aan booqanay xafiiskaasi ayaan waxaan ku aragnay shaqaalo aad u fara badan oo hortuban xafiiskaasi si ay bal darajooyin kala duwan u helaan isla markaana imtixaan looga qaado mid ka mid ah gabdhihii xafiiska hortaagnaa oo wajigeeda ay ka muuqatay xanaaq isla markaana inoo sheegtay inay toddobaadyo ku soo laabanaysay xafiiska ayaan kala sheekaystay bal xafiiska waxay kala kulantay gabadhaasi ayaan ku qiyaasay inay ahayd 23 jir isla markaana waxa ay inoo sheegtay in ay gudoomiyaha la hadashay isla markaana hadal la yaab leh uu ku yiri meeshii tagay markaan meeshii tagay muddo badan aan ku noqnoqdo sidaan u soo noqonayo markaan wareeray
ayaa waxaan iri maxay ahayd waxay tahay dhibaatada war sida noo dhaamo oo maxay ahayd nasiya hawsha aan kugu nimid ila meesha hawla la idin keenay markaas la lacag war lacagtu waa maxay ma waa lacag diibaysa lacagta cadadeeda aniga hadda ma xasuusto laakiin waa inaad dhiibtaa lacag markaan wareeray oo maskaxdii wareertay ayaa soo baxay waxaan u imid adar caldeere markaas aan adeerow ii fududee oo hawshan ii qabaadeero markaas maxaan ku qabtaa markaas aan maxay tahay bahashan iyo sidaan ma waxa iga dhaantido sidaan ii dhaantida adeerow markaas uu yiri adeer inta adeer leedahay ex dhaafimis shaqaalaha dawladda ee iska diiwaan geliyay xafiiska guddiga shaqaalaha dawladda waxa kamid ah shaqaalaha dawladda ee iska diiwaan geliyay xafiiskaas waxa kamid ah howlada qaranka Soomaaliyeed ee Waabari iyaga laftooda waxa ay ka cabanayaan cadaalad darro waxaanan ku booqanay xaruntooda waxay intooda badan haystaan darajada B kumana qanacsana waxayna sheegayaan in aysan u qalmin waxyaabaha la yaabka leh ee ay inoo sheegeen waxa tusaale ay inoogu soo qaateen mid ka mid ah fanaaniinta oo inala hadlay waxa uu yiri xafiiska cadaalad darradiisa waxa cadaynaya Ciise Jiidow ayaa ex la siiyay caaliyana Ciise Jiidow waxa uu ka mid ahaa fanaaniinta qaranka Waabari isla markaana ka qayb qaatay bandhig faneed lagu qabtay wadanka Nigeria bandhigaasi oo Soomaaliya kaalinta koowaad ay ka gashay waxa uu Ciise ka mid ahaa qaybta folklore dancerka ee Waabari haddii Ciise sidaa ahaa anigu ma garanayn waxa ay tahay caaliyo laakiin hadalka waxaad ka dhadhansan kartaa in aysan isku qalmin labada qof balse loo kala eexday maxamed cumar dalxa oo ka mid ah xildhibaanada Soomaaliyeed ayaa sidoo kale ka hadlay musuqmaasuqa baahsan ee ka jira xafiiskaasi iyo waxa uu keeni karo waxa uu sheegay dalxa in qof aan waxna akhrin waxna qorin haddii la siiyo darajada heerka koowaad looga baahan yahay halkii mushaarka uu uga qaadan lahaa isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yiri dalxa wallahi horta haddii nin isagoo oo haddana darajada la soo siiyay haddii ay tahay inuu yahay nin technocrat ama computer iyo hawl bacday u baahan aqoon haddii la yiraahdo waxa la iska rabaa Soomaalidu waxay tiraahdaa burkii adiga aad cuntay bootintiisa la iska rabaa waxaan u malaynayaa haddii agaasimaha maartay guud iyo kan waaxda iyo wasaaradda ay shaqaalaha soo kale haddii ay dalbadaan inta imtixaan la qaado la yiraahdo dadka noocaas oo kala ah inta la soo siiyo ninkii waa xirfada la yiraahdo xirfadii asiga loo soo baartay qoray ee darajadeeda la soo siiyay waxa laga sugayaa inuu ku shaqeeyo laakiin hadduu ku shaqeyn waayo xafiiskii ogolaaday laftirkiisa qayb uu noqonayaa nin asaga uu dalbaday nin مثلا حساباتك كوانا عشان accountant اما نين معرفتي كمبيوتر اشياء الشقاق ونقول اما نين معرفتي اريمك مركا لوغا باهي مامول حدي اساقا اقورانا لهين اللي يرادو نينكاني aqoontaas uu leeyahay ama injineer wahay haday shaqadii haduu qaban waayo mareen maayo in si fudud ninkaas inuu xafiiskaasi mushaar inuu ooga qaato tan iyo markii dawladda federaalka ee Soomaaliya la dhisay waxa soo baxayay eedeymo kala duwan oo ka imaanaya dalka iyo dibadiisa eedeymahaasi oo ku aadan musuqmaasuq baahsan oo ka jira qaar ka mid ah xafiisyada dawladda iyo waliba bangiga dhexe oo qaramada midoobay ay ku eedeysay inuu halkaasi ka jiro musuqmaasuq baahsan iyo wax isdaba marin dhanka lacagta ah ma jirto ilaa iyo hadda cid lagu soo eedeeyay musuqmaasuq ama maxkamad loo soo taagay